kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga VOA oo aanu ku eegayno toddobaadkan aqoonta iyo dhaqanka Soomaalidii hore. daraasado kala duwan oo la sameeyey ayaa muujinaya in Soomaalidii hore ay dhaqan ahaan lahaayeen qaab ay ku ogaadaan wakhtiga iyo saadaasha cimilada. sidoo kale waxay lahaayeen magacyo u gaar ah oo ay bilaha iyo maalmaha u kala bixiyeen. Ibraahim Axmed Cali waa cilmi baaris Soomaaliyeed kuna sugan dalka Djibouti. waxa uu dhowaan soo saaray kalendar ama tirsi uu ku saleeyey magacyada af Soomaaliga ah ee bilaha iyo maalmaha. tirsigan aan soo saaray waxaan ku saleeyey sidii loo isticmaalayay oo loo adeegsanayay dhaqan ahaan wax aanu antumay ama aanu maadaragtay aan habeeyey maahin. waxaa ii soo baxday tirsi ay leeyihiin nimanka badmareenka ah ee Soomaalida ah. kow waxaa kaloo ii soo baxay tirsi ay leeyihiin nimanka xoolo dhaqatada ee Soomaaliyeed. tirsi kale oo ay leeyihiin nimanka beero qodaalka ee Soomaaliyeed. saddexdaa tirsi dabadeed markaan si kasti aan u rogroga een dhalaaliyey waxaa ii soo baxday tirsigan aan kalendarkaan ku soo saaray ayaa ii soo baxay tirsigaas oo la yidhaahdo tirsiga buraad ama tirsiga kala guurka ee Soomaalida. waxaanan u qaatay waa kolka koobaad waxaa ii soo baxday in kow bisha koobaad oo 3 bilood ee xagaaga bisha koobaad waa naaf isla markaana waa god kamid ah 28 god. bishu waa 30 cisho. bisha labaadi waa kodxin waa 30 cisho. bisha saddexaadna waa dirir waa 31 cisho. 3 bilood xagaaga iyaale. 3 bilood ee ku xigta waa gudba oo 30 cisho ah. xorey oo 30 cisho ah. darabley oo 31 cisho ah. 3 bilood ka xigtina waa cirir oo 30 cisho ah. cuur oo 30 cisho ah. duugato oo 31 cisho ah. bisha cuur marka 4 sanadood la joogo isbedel baa dhaca waxay noqotaa 31. bisha miicaad oo bisha tobnaad ah waa 30 cisho. agaali oo waa isla markaana waa godka meesha agaali aan ku leeyahay waa 31 cisho. afagaalna 31. marka 12 bilood sidaas iyay yihiin. haddii aan ka hadlo in yaroo ku saabsan 7 ayaamood waxaa jira waxa la yidhaahdo ayaa jira 7 maluug. 7 maluug waxa weeyaan 7 balaaneedada bahalada la yidhaahdo. balaaneedadaasina maariska xidigtan Jupiterka Soomaaliduna meerayaasha ay u taqaano weeyaan. kolka bahalada meerayaasha loo yaqaano ee 7 ah sal u ah kolka waxa weeyaan cadceeda maalinta koobaad ayaa loo adeegsadaa. maalintiina waxay noqonaysaa cadceeda. maalinta labaadi waa hodala oo dayaxa ah. magaca labaad ee dayaxu leeyahay af Soomaaligu waa hobala iyo weeyaan. maalinta labaadna oo waxa weeyaan waa isniintii. maalinta saddexaadna woobley. woobku waa geed lagu aslo qarida oo caseeya. marka woob marka kale la leeyahay waa balaaneedka saddexaad magaciisa ee loo yaqaan xidigta Maaris loo yaqaan. woobley waa talaatada weeyaan. maalinta saddexaad waa dabra. marka dabra waxa weeyaan waa maalinta afraad baan u jeedaa. wuxuu ka yimiday xidiga la yidhaahdo dhabbare waa Mercury waa xidiga cadceed ku dhabbare. marka xidigaas waa dhabbara la yidhaahdaa. markuu ayaanta tahayna waa dabra weeyaan. waa dabra oo kolka waxa weeyaan arbacada. maalinta shanaad waa dabayl weeyaan oo maalintaasi dabayle waa xidiga weyn ee Jupiterka la yidhaahda ee aadka u weyn. waa maalinta shanaad. khamiista aan u naqaano weeyaan. dabayl weeyaan maadaragtay ayaa ayaantina noqonaysaa. xidiguna waa dabayle. maalinta lixaad waa dusa waxa weeyaan bahashan la yidhaahdo Venus quruxda badan leh iminka xaggan joogta cadceedu ka soo baxaysa xidigta waa bari Soomaalida qaarkoodna u taqaano waa dusta weeyaan. waxa dusa loogu yidhay xaggan bariga iyadoo joogto unbaa galbeedka haddana laga arkaa. giraanta dhulka iyo dhulka hoosteeda dustay odayadu yidhaahdeen. saasay duso u yidhaahdeen. Soomaalida qaarkeedna inay wax kale u taqaana Allahu yaclam. kolka waa maalinta lixaad oo waa jimcaha weeyaan. diimeley waa maalinta 7 oo bahalkan la yidhaahdaa Saturn oo ah xidiga 7 7 xidiga ugu sareeya
weeyaan diimaley oo diyaana la yidhahdaa xidiga diimaleyna waxa weeyaan ayaamtii oo waa sabtida 7 ayaamood waxay ka soo jeedaan kolka 7 balaaneed ayay ka soo jeedaan ama meere ayaamahana taas ayaan ka keenay waxaase jira niman kale oo saaxiibadaya ama niman kale oo qorayaala oo ka ugu cumri dheer ama ninka ugu cumri dheer uu ahaa nin ku noolaa maxaan idhahdaa warsheekh oo isagu maad aragtay warsheekh waad garanaysaa inay gobolka banaadir maxaan idhahdaa aad ugu dhowdahay marka warsheekh waxa weeyaan ninkaasi wuxuu isaga laga wariyay 100 sano ka hor qoraal laga hayo waxa weeyaan 7 ayaamood hahad buu axadda ka dhigay qoraxdana wuxuu ka dhigay isniin ama hakhan sare talaata ayuu ka dhigay kumat arbacada ayuu ka dhigay sare hakhanna khamiista ayuu ka dhigay sare ari jimcaha ayuu ka dhigay sare geel ama gaalna sabtida ayuu ka dhigay deegaanada Soomaalidu ay ku nool yihiin oo aad u ballaaran iyo tirayarida cilmi baarista lagu sameeyay taariikhda Soomaalida oo dhan ayaan suurtagal ka dhigaynin in la soo wada koobo eray bixinta la xidhiidha xilliga iyo waqtiga ee ay u yaqaaneen Soomaalida ku nool deegaanada kala duwan laakiin Fanax Xaaji Aadam oo luqadda Soomaaliga ka dhiga kuliyadda South Central College ee gobolka Minnesota ayaa isaguna soo bandhigay cilmi baaris uu ku sameeyay arintan waxa uu soo saaray kalendar af Soomaali ah isagoo adeegsaday ereyga ah halaatus horta waxay ugu dhalatay baaritaanka iyo raadintan halaatuska af Soomaaliga 2010kii markaas oo aan shahaadada labaad ee magisterka aan ka diyaarinayay magaalada hadda aan deganahay kuliyadda ku taal ee la yiraahdo Montclair State University waxaan isbaranay macallin American ah oo muddo 15 sano Sacuudi ka soo shaqeeyay marka macallinku runtii wuxuu jeclaa markasta markuu isaragno inuu luqadda Carabiga ula hadlo maadaama aan muddo dheer 16 sano aan deganaa Yemen marka macallinkaasi professor meesha jaamacadda nafteeda ka dhigo wahay marka markuu waqti helo way soo wici jiray waa sheekaysi jirnay si Carabigiisa oo ugu dhumin maalmaha kamid markuu wuxuu weydiiyay maalmaha af Soomaali maxaa lagu yiraahdaa runtii waa mid waagi ugu bariisay oo ku baraarugay أنا أفرت سنة سلا بكرة وحاول سبدي أحد يسنين كسرحوا يري لا كون عربي جواي أذن كوم الذي هو أنت بقى يقول بري بلي هذا ويد بلي هذا محين جنوري فبراير وهي كون إنجليزي وكوده إبريل اللي قبلها والله بحنا مركو حكلا ما هي ساعة قلت نمتي مركز أيام قلت كل دقائق بررت إن أنا هذه بالمالمية في الصومالي إيو بليه في الصومالي ولنا دبقلوا وحون أنهلوا وقليت حتى أنا دافع النقضان كسرته سدي حد سنين ملفت أنا كروا الصومالي وعربي مثلا عدو واحد وبيا أنا لمرين مركونتي وعواي هرت وحان عدا وحان عن صوبا دقي أو نجاجي وحان عن ألف معها إنترنت كان قريب بارتانا سمي مركي قدام بيسي وحان يسوي وحان يدور روايات أو معناها دور فكرة أو كل الدول أو معلومة اللي تحيي مركز تنبو إلى أمريكا سنين أرنتي أبانو آد أوجع الله أرنتي أبانات الصوماليات أبانات أو عن سنة أو نسنة وها أبوان حسن شيخ مومن الله نحرسته أيا وحان هلي باركات أو سميي أو معلومها مركز وحاوي مركز في يكون عن سوى عليه وحايل موقتي وح الصورة قلقة كي أبوان حسن الشيخ مومن وسوقاتي أيا سورقل إنه مقتي كي أيا سوقاتي مركين المالميه هالكاسي كو عبارة أو مالين تسدي أو سورقة أحد أو كوفين سنينتي أو لمن مركب ما الله ولا أنا كنت تماشى لمن لم توكا كودار وأربعة حكيسو وخميسي حكيسدرن واجمعي hortooda bisaaso macnaha runtii markaan ku sameeyay dib u raac waxay ila muuqatay maadaama Soomaali hadaan nahay maalinta sabtiga ay tahay maalinta oo isbuuca uu loo soo noqdo oo saddex shaqo aan bilowno waa soo roge waa sida aniga u aliftay oo macnaha uu sameystay soo roge maadaama awgaanku uu ka bixin wax faal dheer ah waxa ay soo roge sitimaakii dhammaadey soo celisay كوبين ويكوبس وحين السعودية كوبسي وأحد واي لمنت وحن كسوقاتي إلى لم بيرتا
macnaha waxaa jirto dadka beerleyda waxay isticmaalaan ereyga limin waxa waaye markuu isku baxo maaragtay abuurkiisa markuu intuu yar yahay oo isku baxo si uu isku gubin qaar baa laga jaraa waa lim beerta limintaas asaasa la yidhaahaa talaadada waxaan usoo qaatay oo u qaatay inay tahay lama tooko lama toog maadaama talaado ay kala barayso 3 iyo 3 u qaybinayso arbacadii waxaa yidhi marka koodaar ereygaas runtii wuxuu ila muuqday erey kushita abaankan waa hoos ku cadeyn doonaa insha Allah waan ku sheegi doonaa laakiin waxaan u soo qaatay farxad koodaase ereyga la yidhaha afka naxwada ku jiro koo kale la koodaase marka koodaarka saasaan ugu soo dhaweeyey hakiso waa istaajiso waaye waa khamiisti waaye wixii la soo hagaajinaysaa jimciin waxay noqotay hakiso bile waa sharax aniga ugu samaystay markaan todoba maalin ereygan erebixinta oo kalendarka ah runtii markaan baaray 90% halatus waa la isku raacsan yahay halatus marka ereygaas waa kalendarka waa la isku raacsan yahay midda kale bilaha runtii qaarkood dad badan oo odayaal oo runtii waayo araga la wadaagay inkastoo bilaha af Soomaaliga inta badan Soomaali ay yihiin intooda 100% waxaan dhihi karaa 12 bilood intaba af Soomaali oo caadi laga gara kara waayo oo ku salaysan xilliyadii مثلا جيلالك أو winterka ah bishii January 7 February حيث March diraac saddexda hoos imaanaysa macnaha guugane waa seermaweydo oo runtii cid waliba ay gara karto canda qoys iyo gu'yare xagaaga ama samarka waxaa hoos imaanayo xagaa cadde xagaa madoobe iyo karan deerta waxaa hoos imaanayo dambarsame oo October ah deer halaalood oo November ah iyo dalaalo oo December marka waxa waaye todob waa January حيث waa February diraac waa March seermaweydo waa April canda qoys May gu'yare June xagaa cadde July xagaa madoobe August karan September dambarsame October deer halaalood November iyo dalaalo December marka 12 bilood sidaas ayaan aniga ku go'aansaday dhinaca sharciga iyo xeerarka bulshada waxaa jira xeerar ay Soomaalidu lahaayeen oo lagu kala saarayay dadka isqabta ee isku deegaanka ah Cabdalla Xaaji Cismaan Ceelaye waa cilmi baare u kuurgala arrimaha dhaqanka waxaana uu ku nool yahay Djibouti waxa uu qoray buug ku saabsan mid ka mid ah xeerarka Soomaalida oo loo yaqaano xeer Ciise xeerka Ciise wuxuu ka mid yahay aduu xeerashii Soomaalidu ay lahaan jirtay mahmaha odhanaysaa jirta meel aan xeer lagu lahayn waa lagu xooloogaa kolka dadku xoolo ma ahayn xeerku uu jiray oo way lahayd Soomaalida oo dhan xeerkan Ciise laakiin taariikhdii loo fadhiistay iyo xiliyadii la sameeyay ayaan xoogaa dulmariyo tusaale ahaan geeskan Afrika dawladii islaamka ee Axmed Gurey hogaaminayay ugu dambeyn markii la jabiyay Boortaqiiskii amxaaradu isugu tageen Axmed Gureyna la dilay kadib ciidamadii Boortaqiisku waxay xeebaha Soomaalida oo dhan madaafiic ku garaaci jireen gaar ahaan Sayrac baa kamid ahayd meelihii maaragtay ay duqeeyeen xoog duqeeyeen jasiiradda Suqadra la yiraahdo ayuu markaa Boortaqiisku degay xeebaheena Soomaalida wixii ka baxay wixii soo galayeen uu cuna qabatay deedna markaas lagu noqday miyigii iyo magaalooyinkii laga guuray baa shirkiina uu istaagay xilliyada waliba waxaa ka dhacay dagaalo kale oo fowdo ayaa bilaabatay waliba quruntan la yiraahdo Oromada oo xilliga badan wadatay ayaa sida taariikhahanadu Karaam Maxamed Cabdullaahi Riiraash taariikhaanka weyn aan ka soo warinay wuxuu yiri xilliga ay Oromadu dhulka timiday oo in qabsatay deedna rogaal celin dambe ayay dadkii galeen gariirana way dhaceen deedna Oromadii markii dib loo celiyay oo xilliga gaalaawi la oran jiray odayadii maxay ahaayeen taariikhda ka soo gaarnayna way ka waramaano qoladaas waxa hogaamin jiray baa la yiri nin la oran jiray Aalabuuri ama Aalaboore la oran jiray ninkaas markii la jabiyay iyo colkiisii waa weerar lagu qaaday xilliga kadib oo foodadu jirtay ayaa maxay ahayd xeerka keentay oo loo fadhiistay odayaduna waxay sheegaan markaa xeerka markii loo fadhiistay 4 meelood ayaa laga bilaabay oo la fadhiistay 50 sanadood ayuu soconayay xeerka dhigistiisu ayaa odayada ka soo wariyay gobolkan maxay ahayd Salal iyo Awdal iyo gobolka City la yiraahdo dawlad deegaanka Soomaalida haatan kamida ayay intuba ku yaaleen oo loo fadhiistay 50 sanadoodba si haddaba xeerkii ay u qodobayaan ay dadkii maaragtay u xukumaan waxaad ka garanaysaa xeerku si uu dhigan yahay in dadkaas oo ahaayeen dad wax yaqaan qaabkii dawladihii ay soo arkeen bay dhulka u qaybiyeen waxay ka dhigeen 12 gallin
waxay ka dhigeen 12 bay qabiilkii ciisaha u qaybiyeen si ay wax ugu qaybsadaan ay maaragtay isku ogolaadaan heshiis ugu ahaadaan 12 geed oo garta lagu qaadana way sameeyeen 12 dixood oo caan oo iyana la fadhiisana way sameeyeen marka kadib ayaa haddaba xeerkii lagu dhaqmay ragga xeerka ku dhaqaya dadka cid walba xeerka kuma dhaqdo dadka xeerka waxa ku dhaqa ummadda rag la yaqaano oo maaragtay daacada leen dadku dad mushahar iyo lacag qaadan jiray ma nin walba xoolihiisa iska raacay isagoo daacad ka ah ayuu arrinka galay ragii xeer yaqaanka ku kaxay ayaa haddaba dadka u tirinay sidee lagu garanayay ragga waxa la yidhi oy odayadu yiraahdeen ama aan ka soo warinay raggu waa didiye iyo dabaale ninka didiye la yiraahdo waxba looma dirto ninka dabaale la yiraahdo dadka isku soo duwa ayaa xeerka maaragtay dadka garta u qaada oo ummadda kala wada raggu waa aayareeb iyo eelareeb baa la yidhi aayareeb weeyaan ninka ummadiisa u taliya eelareebna waa ninka maaragtay la yidhi garma qaadi karo raggu waxa la yidhi waa soof eeg iyo suul eeg waa nin dadkiisa kusoo jeesto aan waxba laakiin isagoo xumaan ka shaqeeya soof eegna waa nin meel fog wax ka eego aragti dheer raggaas oo kale weeyaan bay yidhahdeen ragga xeerka dadka ku dhaqayay waxa la yidhi raggu waa bogsiye iyo beleliye bogsiye ayaa wax loo diranayay oo dadka maaragtay kala dhabay oo xeerka iyo garta ku kala qaaday waxa la yidhi raggu waa hedlade iyo hurdi hedlade waa ninka shaqeeya ee kalaha ee xoolaha iyo ummadda u shaqeeya hurdana waa nin ay dantiisaba sheegayo waxba dee looma dirto waxa la yidhi xoolo la joog iyo xeer la joog weeyaan raggu xoolo la joog waa ninka xoolaha dhaqaaleeya geel iyo lo iyo ariba iyo wixii kale soo raaca xeer la joogna waa ninka geedka joogay goorkasta ummadda u taliye ragga xeerka yaqaanay buu isna ahaa waxa kaloo la yidhi raggu waa talakaan iyo tala raac ninka tala raac la yidhi waa ninka raggi wixii uu ku taliyo raaca talakeenna waa ninka ummadda u tirinaya talada keenaya ayuu ahaa marka haddaba waxaad isweydiinaysaa ood leedahay xeerka miyuu qornaa waagaa mise ma qornayn waxay nagu soo gaadhay inay waxaasu qornayn laakiin dadku ay madaxa ku hayeen oo iyaku ay xafidsanaayeen si ay xafidaadu ugu dhib yaraatana way qodobeeyeen oo yacni maahmaaho ayay isticmaaleen si maaragtay aan loo iloobin waayo maahmaahda lama iloobo iyo suugaanta waxaa ka mid ah haddaan tusaale usoo qaato marka qodobka ay leeyihiin ciisuu dhulku wada leeyahay waxay yidhaahdeen ciise ceel iyo caws ma kala laha dhulka ceel iyo caws ba ku yaalla wixii la isku dilay weeyaan ma kala laho dadka uu dhexeeyaa baa la yidhi ciisaha uu dhexeeyaa bay yahay waxa la yidhi ciise 3 baa dhex u ah bay yidhaahdeen oo waa xeerka dhulka iyo ugaadka intaasaa udhaxaysa oo ka dhaxaysa xeerkuna waa xeerkaa lagu wada dhaqmayo dhulkuna waa dhulkaa la wada leeyahay la daaqayo ugaaskuna waa aabihiio waa boqorkii ummadda waxa kale yidhaahdeen tusaaleaan usoo qaadanaynaa sidiin iyo jicsin ha inaga dhexeeyo sidiin waxaa la yidhaha waxa la wada cunayo la ismarti gelinayo ee wax la isasiinayo jicsinna waxaa la yidhaahdaa markuu nin caydhoobo ama reer caydhoobo aan idhaahdo oday iyo carruurtiisi iyo markay caydhoobaan waa la jicsimaa oo waxaa loo soo ururiyaa oo xeer xoolo nool si maaragtay iyaguna ay nolosha uga qayb galaan qodobada caynkaas oo badan ayaa jiro halkan ugu soo koobi jiray intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga VOA tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo